lacag baa laga dhacay hadda ugu dambeys Omar lacag laga dhacay fanaanka caanka ah Iidle Yare ayaa gabi ahaanba sheegay in Omar Barber uu lacag ku leeyahay taas ayaa waxay ku soo aadaysaa xilli Omar Barber lagu dhagan yahay gabadhna ay u sheegatay uur Yare ayaa su'aalo laga weydiiyay waxaana su'aalaha loogu magac daray su'aalaha shanta ah kuwaas oo uu weydiinayay DJ-ga caanka ah ee DJ Suwer ayaa wuxuu caan ku yahay in fanaaniinta uu su'aalo fara badan weydiiyo kuwaas oo uu ka weydiiyo naftooda iyo waxyaabihii la gudboonaa markii su'aal la weydiiyay ahayd Omar Barber ayaa waxa uu Iidle Yare sheegay in uu lacag ka dhacay lacagtina ilaa hadda uu ku leeyahay waxaanad moodaa in Omar Barber maalmihii ugu dambeeyay lagu dhagan yahay taas oo u muuqata in Omar Barber ay fadeexadii abid ugu xumaa ay soo wajahayaan tan ilaa iyo intii uu soo galay fanka waxaana hadda muuqata in gabadh ooyeysa oo baraha bulshada qabsatay taas oo ku andacoonaysa in ay uur u leedahay Omar Barber ayaa waxa haddana imanaysa in fanaanka caanka ah ee Iidle Yare uu isna sheegay in uu lacag ku leeyahay taasina uu kala baxsaday kadib markii uu Nairobi yimid halkaasina show ku dhigay lacagtii halka ka soo gashana uu isaga cunay fadeexadahan ku aadin fanaaniinta caanka ah ee hadda soo baxaysa ayaa waxay u muuqataa mid xadhkaha soo goosatay taas oo gabi ahaanba baraha bulshada maalmihii ugu dambeysay iyo waayadii ugu dambeeyay soo shaacbaxaysay taas oo ay ugu dambeysay fanaanka caanka Omar taas oo gabi ahaanba cod lasoo duubay lasoo dhex dhigay social media halkaas oo ay gabadhu aad u ooyeysay waxaanay sheegaysay in ay uur u leedahay Omar taasi oo uu ka hadlay Omar waxaanu ku tilmaamay mid wax makama jiraan ah
أضمبا وحداتي أنبدي باقتشيلال حلية سلام فوقي ديفتا كائلا بشير أضمبا حلية سلام تغيدك كائلا بشيء تعطيه أبارا كهدوري هديم تسوك رؤاتيو وعبسي يديدو أبارا كادوري هديم الصبك دعائيو وعبسي دليلو ياي